been dambe mar walba ma quweysan karo waayo timihii ayaa iga daadanaya ama jijabaya haddaan quweysto war adiga caag miyaad iga dhigatay arrimo caynkaas oo kala ah ee sheekho maxaa ila gudboon aan sameyn karaa jazaakallahu khayr alxamdulillah axmed waxaan malaynayaa su'aalihii gogosha isu soo xusheen caaw maanta fadhigeena su'aalihii gogosha intaan marayna waa uun gogol rag iyo dumar baan malaynaya calaa kulli xaal su-aashan waa laba qaybood qayb waxaa weeye gabadhu waa dembi in ninkeeda u baahan oo gogosha ugu baahan ay diido cudur daar la-aan anigu dareen ima hayi iyo qoyaanka badan magatiyo timaha iga daadana cudurdaar sharciga maaha waan xanuunsanahay maalin weeyo soon waajibaan soomanahay dhiiggii caadadaan qabaa waxyaabaa laga garaabi kara weeye sharcigeenu xataa wuxuu yidhi haddii jiko ay ku jirto dabka u shidan yaho raashin u saaran yahay waa inay hawsheeda hakisaa xuquuqda la isku leeyahay weynankeeda iyo kutusi guurkuna asaas waxaa u ah rajo ilmaa laga qabaa laakiin xaaraan in la iskaga dhowrsado nabiguna alay slam waxaa ka sugan inuu yidhi haddii gabadha ninkeedu gogosha uga baahdo ay diido habeenkii ka soo qaad lacanat almalaa'ikatu xataa tarjic aw xataa tusbix ilaahay ka soo laabata ma go-aankii sidaas ahaa ama waa uu ka barya lacanad malaa'ig baa ku soconaysa marka waa dembi kabaa'irta kamida gabadhani waxay samaynayso ta labaad ninka maxay la gudboon dee waxaa kula gudboon adiguna haddaa reer u baahan tahay iyadiina ay kari la-dahay dee reer labaad samayso reer labaad samayso intay shahwadan xaraam kula geli lahayd dee guuri labaad samee gabadhani haddii iyadu kari weyday iyaduna waa inay ogolaato ay aqbashaa wabillahi tawfiiq